talaadada ahayd ayaa dab aad u ballaaran waxa uu ka kacay bildin weyn oo ay dad aad u tiro badan ay degan yihiin oo ku yaala gudaha magaalada London ee waddankan Ingiriiska. Dabkan ayaa waxa uu keensaday in dad ay ku geeriyoodaan isla markaasina dhaawaca uu aad u badan yahay. ciidamada dabdamiska ee waddankan Ingiriiska ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in bildinkani dabka uu qabsaday saacadu marka ay ahayd 12 iyo barkii habeenimo, isla markaasina dadka bildinkaasi ku nool qaar badan oo kamid ay isku dayeen in ay markaas ay ka soo baxaan, qaarna ay markaas ay ku xayirmeen, qaar kalena ay markaas ay ku xayirmeen dabaqyada sare, taas oo keensatay in dad ay ku geeriyoodaan, dadna ay isku dayeen in ay dabaqyada sare ay ka soo boodaan. ciidamada booliska ayaa waxa kale ay shaaca ka qaadeen in dadka inta badan ay u geeriyoodeen qiiqa aadka u ba'na ee markaasi bildinkaasi buux dhaafshay, isla markaasina dad inta badan u hadlayay ama dad ka mid ahaa dadkii ka badbaaday ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in ciidamada booliska iyo kuwa dabdamiska ay ku qasbeen in aysan qolalkooda aysan ka soo bixin. bildinkan oo lagu magacaabo Grenfell ayaa waxaa la dhisay sanadka markuu ahaa 1974. bildinkaasi ayaa waxa uu yahay bildinada ugu dhaadheer ee ku yaala magaalada London, isla markaasina 24 dabaq uu yahay, dabaq kastana ay degan yihiin ilaa iyo 6 reer. ilaa haatan waxaa la xaqiijiyay 17 qofood in ay ku geeriyoodeen, 75 kalena ay haatan ay dhaawac yihiin, qaar badan oo kamid ahna xaaladoodu ay aad u liidato. laakiin sareeraha ayaa waxa ay soo gudbiyeen dad aad u tiro badan oo markaasi ilaa haatan la la'yahay, ayna u badan tahay in qiiqa uu ku qabsaday iyagoo hurdaya aysan u suurtagelin in ay bildinka ay ka soo degaan maadaama dabka uu ka kacay qeybaha hoose ee bildinkaasi. bildinkani ayaa waxaa la sheegayaa in ay degnaayeen dad kor u dhaafaya ilaa iyo 700 oo qofood. reeraha ayaad waxaad moodaa in ay runtii aad ay kaga caraysan yihiin sida ay haatan ay wax u socdaan, isla markaasina ay shaaca ka qaadeen in dowladda aysan wax sidaasi ah aysan ka qabanin. arrintan ayaa waxa ay ka mid tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee inta badan ka dhaca bildinada dhaadheer ee ku yaala waddankan Ingiriiska. bildinadana ayaa inta badan waxaa leh dowladda waddankan Ingiriiska, waxaana loo yaqaana council houseska. guryahana councilka ayaa reeraha degan inta badan waxay aad ay kaga andacoodaan dhibaatooyin isa soo taraya oo ay markaas ay ka sheeganayaan ama qalabka sheega in guriga uu dab u ka kacay. bildinkan ayaa waxa uu ka mid yahay bildanadii ugu dambeeyay ay local councilka Kingston and Chelsea ay isbedel ballaaran ay ku sameeyeen, isla markaasina ay ku kacday lacag kor u dhaafaysa 10 milyan oo poundka lacagta waddankan Britain. maalmihii ugu dambeeyay ayaa ragga injineerada waxa ay si gaar ah u baarayeen qalabkii ugu dambeeyay ee bildinkaasi lagu qurxiyay, taasina ay sheegeen in ay fududaysay in muddo 30 daqiiqo gudahooda bildinka oo dhan uu gubto. arrintan ayaa dowladda waxa ay shaaca ka qaaday